idilkiinba meel walba iyo si walba muuqaalka iyo soo gaarayo waa barnaamij gaaban oo laga hadlayno baarlamaanka maamulka Puntland ayaa waxa uu dhawaan kala diray xukuumadii maamulkaasi arrintaas ayaan ku falanqayn doonaa waxaana inaga qayb gali doona xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Umar Ismaaciil Waabari oo kamid ah xildhibaanada laga soo doorto maamulka Puntland mudane xildhibaan ugu horeyn soo dhow Star TV marka هذه الإسلامية وأنا مهندس في ستار تي في هذه وقتي حلبان وحتى حلبان laga soo doorto maamulka Puntland waxa maalmahan ka jiray khilaaf siyaasadeed oo runtii baarlamaankii ba ay kala direen xukuumadii Puntland bal arrintaas horta maxaa xogood ka haysa adii xagaaga بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتي المرة لبعض runtii arrintaas 18 bishii dhacday waan filayaa in baarlamaanka Puntland uu kalsoonida kala noqdo xukuumadii Puntland arrintaas runtii waxay ku timi anaga warkan ka hayno markaan Ramadan oo markaas soo baxay sababtoo ah maamulka baarlamaanka intaba shaqadoodii bay haysteen laakiin midda meesha oo leeyahay waxa weeyaan runtii ogaadintaani waxa weeyaan in uu sharcigu shaqeeyo guud ahaan waddanka Soomaaliya sababtoo ah baarlamaanku sideeda waa inuu sharci ahaan baan uga hadlayaa baarlamaanka sharcigiisu waa inuu xukuumadda kontrolo oo shaqada ay dadweynaha u hayso oo ku kontrolo runtii intaan kalsoonida lagala noqon xukuumadda waxa ka horeysay dood laga hadlayay amniga laga hadlayay maaragtay dhinacii maaliyadda iyo wax walba oo runtii halgowlaha dadka shacabka ah dooda kadib waxay ku timi in marka xukuumadda baarlamaanku uu marka kalsoonidii kala noqdo golaha wasiirada marka runtii masaladaas oo mas'ala sharci ah oo dabcan wayna sababayeen oo dastuurka iyo wixii marka ay ka hadlayeen waxa dastuurka qabo oo sheegay dastuurka Puntland dabcan marka la joogo xaggaas ka hadlaya marka mas'ala sharci ah bay ahayd sharci warar hoose ayaa waxay sheegayaan dadka ogaalka oo ah maamulka Puntland in madaxweyne Cabdi Maxamed Cali Gaas iyo xukuumaddiisu qaar ka mid ah wasiirada ay ka dhaxaysay guf taasoo awood uu ku bedelo isagoo ka baqanaya inay qalabaysan yihiin wasiiradaas oo maaragtay ay ku haystaan waan ognahay oo 4.5 ka meel walba maaragtay yaala oo Puntland isaga laftiisu deegaanada Puntland dadka deegaanka ku qaybsanay marka arrinta ma la soo karaa arrinta darteed uu gaas u soo maray baarlamaanka wax walba oo lagu qanciyo lagu kala runtii anigu sharciyan inta ma qabo shakhsiyan inta ma qabo masaladan waxaan aaminsanahay runtii masala shaqa ka qabsanaya baarlamaanku oo shaqadooda shaqooyinkooda ka sababtaan baarlamaan baan ahay oo federaalka waana qaana shuruucda baarlamaanka baarlamaanka shaqadiisu waa taa sheegay waa sida xukuumadda iyo wax ka qabashada midan runtii aad baan uga warhaya umalaymayo wasiir baawar leh oo adeeg karo hadda Puntland hadda 18 sanadood baa maamulkeedu soo jiray wasiiradan hadda jooga badidood dhawaan bay yimaadeen oo ismar kasta rashafal ama waxa isku bedel bal sameeya xukuumadda marka dabcan umalaymayo inuu jirto cid awood leh oo la dhihi karo awood baa looga baqay أنا waxaan u arkaa mas'ala baarlamaanku inuu shaqadiisa qabsaday oo ku eedeeyay wasiirada qaybo kamid ah inay shaqadooda gudan waayeen kadibna ay xasaanada uga noqdeen madaxweynuhuna uu waafaqay markii baarlamaanka uu qaraar ka soo baxay laakiin arrin uu madaxweynuhu ka shaqeeyay inay ahayn baan aaminsanahay sababtoo ah deemaba dhici karto wax looga shaqeeyo wasiiradan waa yimaadeen isaga shalay magacaabay maantana kuwa kale magacaabi kara dabcan oo booski buuxin kara marka mana jirto baan qabaa in cid baawar sheegan karto aan laga qaadi karin wasiirnimada
inay jirto arrintaasi arrin jirta maaha arrintan ka warqabo Puntland aad baan uga warhayaa sababtoo ah iyadaa laga soo doortay iyadaa deegaan doorashadeedii ah oo runtii aan ka soo jeedaa joogayna oo de ka shaqaynayay marka arrintaasi wax jira maaha laakiin arrintaasi waa arrin sharci ku timi oo ku celinaya mar kale oo si sharciya oo baarlamaani maadaama baarlamaanku awood leeyahay baarlamaanku shaqadiisa qabsaday madaxweynuhu waafaqay oo yiri waa taageersanahay wax kale meesha ka bari hadda haddii baarlamaankii uu kala dhigay xukuumadda ma la isku oran karaa xiriir ayaa ka dhexeeya madaxweynaha iyo baarlamaanka maadaama uu doorashadii Puntland ka dhiman sanad iyo wax bilood madaxweynaha iyo baarlamaanku ay heshiis hoose u ka dhexeeyay si ay 2 sano ugu darsadaan maaragtay muddo kororsi ay samaystaan awoodaha intaa la ilaa heerka inay gaaraan ma la isooran karaa wallaahi anigu de shakhsiyan ma qabo anigu dhinaca waxaan ka fiirinayaa saxda oo siyaasadda ay u socoto runtii waxaana de wax la sheego oo aan markaa ku dhisnayn wax cad laakiin waxaas cad oo hadda muuqda waxa weeyaan in baarlamaanku uu shaqadiisa qabsaday madaxweynuhuna uu shaqadii baarlamaanka bogaadiyay waayo madaxweynuhu wuxuu ku yimid doorashada baarlamaanka wasiiradu baarlamaanku waxay awood u leeyihiin wasiir ula xisaabtamaan oo xataa wasiir ahaan ay xasaanada u diidaan oo yiraahdaan wasiirkaasi shaqada ma qaban karo waayo wasiir walba shaqadiisu uu qabanayo musharaxa marka saasay ku tibaan aaminsanahay laakiin uma leeyahay in arrimaha laga hadlayo ay sax yihiin ana aaminsanahay in mara awaal dadku iska wada ay tahay una leeyahay inay jirto madaxweynaha iyo baarlamaanku waxay ku heshiiyeen sababta Puntland dabcan madaxweynaha waxa la soo doortay 5 sanadood dastuurkana 5 sano ugu qoran 5 sano waa in doorasho la aadaa markay dhamaato intaan ka warqabno madaxweyne Cabdiweli dhowr jeer wuxuu sheegay inaanu xataa musharax ahayn oo aanu soo sharaxin mar kale dabcan weli kuma dhawaaqin inuu musharax yahay dabcan marka waxa muuqata in shaqadu welina time baa u haray sanad iyo bar mudayir maaha marka anu ma qabo inay intaas jirto waan gartay adigu waa deegaankii laga soo doortay waxaana u matashaa dowladda federaalka xaruntii musharaxa soo tahay bal inta aad ku og tahay arrintan in xukuumadda la kala diro ma khilaaf iyo maaragtay kala maxaa kee weji looga dhigi karaa ilaan shaqo guyasho keliyata laguma eedayn karo intaas wasaaradood xukuumadda laguma kala diro waxaa laga yaabaa in wasiiro aad u firfircoon oo aad u shaqo fiican ay ku jireen dabcan shaksi iyo laba way imaan karaan laakiin bal arrinta wax hore arrima ka weyn أنا والله هرتها عبشة رنتي أنا ودي شغلي وحكومة الفدرال كابان ديجانا ده بنتلان يقول هان الصومالية عن كمين كم ده هاي برهمان كذا أنا وإنتان كوا وجا حيوان تيجي رنتي ديجان دور الشدة بليو برمج وجا ورهمان كوا ودي سيكون جرتو أنت كلي ولا قاعد بني إلى هاي أمريكا واحد جا قبته لنا مشاهرات كلي وحيالها سواء وجا هذا برهمان هو كان أنت ساعي طبعا مدان هنا isku dareen wasiiradii oo dhan taas waa mid baarlamaanka Puntland la weydiiyaa fiican oo waxay ku salayeen laakiin anigu dabcan cabasho waan dareemiyay dadka shacabka iyo baarlamaanka laftigooda rag aan ka kulanay ka qeylinayeen oo lahaa waxyaalo waxa jira dawladdu waxay wax ka qabato dabcan anu waa bogaadinayaa in dawladda la xisaabto sababta hay'adda baarlamaanku waxay u dhisan tahay waa inay dawladda la xisaabtanto marka xisaabtanka noocaan ah waan aaminsanahay tan labaad waxaan ku darayaa halkaas baarlamaanka Puntland runtii waxaan ku bogaadinayaa ayaantii kala fadhiga 39aadna waa ka qayb galay waa lagu casuumay waa sheegay way bisilii sababtoo ah bisilka sheegaya waxa bisil siyaasadeed sababtoo ah 3 sano bay xukuumaddan jaanis siiyeen oo aanay wasiir iyo cid kale ka hadlin inay maanta ka hadlaan oo waxyaalo ku qabsadaan waxaan u arkaa inay tahay bisil baarlamaanimo inay ka muuqato sababtoo ah waxa la rabaa marka xukuumad la aadaynayo in time la siiyo marka hore time-ka marka la siiyo kadibna waxay lagu haysto marka laga hadlo dabcan arrintaas aad baan u bogaadinayaa inay time dheer siiyaan oo dabcan waxaan ma ilaa 3 sanadood meena arkin qalalaasa noocaan oo dawladdu u jirtay
iyo dheeraad weliba marka arrintaasna waa runtii arrin bisayl ah baa la dhihi karaa marka aniga dabcan waxba kamaan ogeyn oo arrintaa iyada ah oo arrin dabiici ahaan ku timi xisaabta baan aaminsanahay weli ku celcelinaya inay dabiici ahaan inay tahay arrin xisaabtana oo xaq u leeyihiin daawayaal halkaa weli aad nagala socotaan waa telefishinka Star TV waxaana barnaamijkan idinkaga imanayaa istuudiyaha magaalada Muqdisho uu ku leeyahay telefishinka Star waxaana dabcan barnaamijkan maanta marti noogu ah xildhibaan Cumar Ismaaciil Waabari oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ahna xildhibaan ka soo doorta dowlad goboleedka Puntland annagoo ku falanqeynayna xukuumaddii dhowaan ay kala direen baarlamaanka maamulka Puntland xildhibaan intaan markaan ka nimaadno aan hadda kaga hadlaynay ee ahayd xukuumaddaas iyo qaabkii loo kala diray adigu waxaa tahay xildhibaan laga soo doorta Puntland shacabka Puntland intan dambe waxay aad u hadalhayeen aad u dhaliilayeen madaxweynaha gaas iyo maaragtay siyaasadda hadda maamulka Puntland ku shaqeeya dhinaca amniga oo kale ay noqoto dhinaca dhaqaalaha bal ma lays odhan karaa isbeddel hadda ka weyn ayaa iman kara maadaama xukuumaddii hadda shaqaynaysa sidaa daraaddeedna ay hadda xukuumad kale miiska soo saaran tahay maxaa la dareemi karaa marka waa mahadsan tahay runtii waa su-aal muhiima anu waxaan arkaa madaxweyne cabdiweli professor cabdiweli jaanis bay u tahay inuu xukuumadda wixii cabashooyina uu hadda soxo dabcan qofka shaksiga ah ma aha keliya eedu waxay noqonaysaa tiimka markaa shaqaynaya hadday shaqada ku xumaato waa sax madaxweynaha dee eedda waa loo tirinayaa laakiin maadaama tiimkii wasiirada ahaa ay hadda meesha ka baxeen oo madaxweynuhu magacaabi doono muddo 12 cishaa suu sheegay madaxweynuhu in la sameeyo in dabcan uu hadda sameeyo inuu ka fiirsado oo ka gacan buuxsado uuna keeno xukuumad muddadaa hadda u hartay dowladda eedda la tiirinayo yaraysa ama baabi'isaba hadday noqon lahayd amniga hadday noqon lahayd mushaharaadkii iyo maaliyaddii oo laga hadlayo iyo hadday noqon lahayd wax kasta oo dadka mujtamac u baahan yihiin dadka reer Puntland oo xukuumaddu ay u tahay xukuumad marka dabcan waxaan qabaa inay arrintaas iyada hadda jaanis u tahay madaxweynaha inuu saxo sidoo kale madaxweynaha waxaan kula talin lahaa inuu sameeyo dowlad yar oo dalka anfacda inuu dhiso oo waxaan faraha badan badanaaba aanay waxba soo kordhinayn xukuumad yar maaragtay si shaqadu u fiicnaato tiraya taasna waan kula talinayaa maadaama adigu aad xeer federaal tahay maamulka Puntland dowladda dhexe ee Soomaaliya afartii sano waxyaabo badan bay cabashooyin badan bay maaragtay dowladda dhexe ay ka qabtay marar bay xataa ku dhawaaqeen arrintii hadda dowladdan cusub ee hadda adigu aad xildhibaanka ka tahay maxaa iska beddelay arrintii caynkaasa wallahi aragti horta dowladdu way cusub tahay dabcan waa hadda waxaan u malaynayaa weli 6 bilood ma buuxin ama hadday buuxisana hadda un bay buuxisay dabcan bishii labaad oo 8 madaxweynaha la doortay haddana bishii 7 baan ku jiraa wasaarada iyo ra'iisul wasaaruhuna waa ka dambeeyey oo marka madaxweynuhu ra'iisul wasaaruhu soo magacaabay kadibna xukuumaddii baa marka ra'iisul wasaaruhu magacaabay dabcan weli ma jirto laakiin ilaa hadda dabcan sida u muuqato dowladda iyo maamul goboleedyada guud ahaan Puntland iyo dhammaan maamul goboleedyada kale wada shaqayn fiican baa ka dhaxaysa ilaa hadda sida muuqata dabcan wada shaqayntaasna waxaan rabaa inay sii socoto hadday noqon lahayd dhinaca dowladda dhexe inay arrintaa xoojiso iyo hadday noqon lahayd dhinaca maamulka Puntland maamulada kaliya inay xoojiyaan waa in wada shaqayntaasi ay sii xoogsanaataa laakiin marka waxaan oran karaa su-aashaada jawiga ilaa hadda lagu jiraa jawi fiican waan gartay hadda haddaynu ka fiirno bal dhinaca wasaaradda dastuurka
wasiirka ka yahay Xoosh Jibriil heer federal waxay waday muddooyinkan dambe maaragtay in dastuurkii maaragtay la hormariyo maaragtay shuruucihii ka dhinaa la sii hormariyo marka dastuurka kumeel gaarka qodobo badan ayay Puntland aad u dhammaysan tahay oo maaragtay ay aad u dhammaysan tahay marka arrintaas sidee aad hawl adiga ku taalana weeyaan maadaama uu tahay xildhibaan waxaad u dhaxaysaa federaalkii iyo labadaba adaa isku xidhiidhaya hawshaas ilaa hadda ajenda wax qorshaa oo idiin degsan oo aad ku xalinaysaan ma jiro والله horta hawshan hadda dastuurku waxaan filayaa dastuurka in la isku sameeyo waa arrin ka mid ah shaqooyinka hadda yaalla baarlamaanka tobnaad oo laba aqal hadda waxna aqalka baarlamaanka oo shacabka iyo aqalka sare oo intii aan hore u jirin oo hadda la dhisay oo markiisa koowaad ay tahay waa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aan uga hadlaynay baarlamaanka Puntland oo dhawaan kala diray xukuumaddii Puntland waxaana barnaamijka nagala qayb galayay mudana laga soo doorto maamulka Puntland xildhibaan Maxamed Cumar Ismaaciil Waaberi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya inta aan waraysiga lamida ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo waxaan u mahadcelinayaa xildhibaan aad baad mahadsantahay